يعني markii Manchester laba gool ay lahayd oo daqiiqadu ay maray 8 daqiiqo malaha Bailey oo soo galay ciyaarta ayuu muray warqad u soo dhiibay warqadan qaad u geey Matic malaha marka William wuxuu arkay Bailey oo warqad u dhiibayo Matic marka William wuxuu islahaa ciyaar 10 daqiiqo ka dhimanay muriin waa taqaanaa caadadiisa waxa baska la diyaariyo disco gudusha gadaal hala dhigo hala difaacdo malaha bas hala gala muu dhihira oo yiri fiiro islaha markii Matic waa dareeyay William soo qootayna markuu arkayo indhaha ku soo xadaya hadda Matic waa iska ordiba kana waa ka daba ordayba war iga har warka ma haray bas dhigta maan in la soo qoray amal William qoslaya ayaa wuxuu malaha Matic ku leeyahay aye bas dhigta ma uu soo qoray macalinka ama disco dhigta anu ninka waa naqaanay ya Matic marka warqadii mar la weydiiyay waxa war Matic warqada maxaa ku qornaa war Matic ninka odaygu warqad buu ku soo dhiibayo war bas goolka la galamu idin soo qoray Disco gooska goosha ku deeya oo ku gooya wuxuu yiri isagoo marka malaha asoon in la ogeyn inuu kaftamay ama run ay ka tahay lama ogeyn Matic laakiin wuxuu ku warkiisa warqada waxa ku qornaa waxa deelaysa saaxiib 3 maalin oo fasax ayaa lagu soo qoray warqada ma ahayn wax kale malaha Matic waxa laga yaabay inuu kaftamay laakiin Matic wuxuu leeyahay wax kale lagu ma soo qorino malaha macnaheedu wuxuu yiri 3 maalin oo fasax baad helaysaa Matic marka Mourinho yiraahdo haduu rabana waxa waa ciyaaryoonka soo garoon ku jiro cimaamada ayaa wuxuu leeyahay caawasad igu shaqeeysi 3 maalin fasax baad leedahay malaha marka Matic wuxuu yiri warqada waxa ku qornaa 3 cimaamad baa lagu tuurayaayo 3 maalin oo nasiina waayahay waxyaabaha kale ugu weyn caawa iyo barnaamijkeena waxa kamid ah gool haya muslima ayaa kooxdiisu ka qariyay geerida gabadhiisa si loo ciyaaro arin cajiib baa ku dhacay ninka kan aad buna umrugooday wuxuu ahaa nin muslim buu ahaayo si kooxdiisa u guuleysato ay u qariyay arinka yani hadii ay ogaadaan ninka in tacsi gashay ciyaartooygu sidii rabeen uma ciyaari lahayn gool hayaha kooxda Navi Maysan ee dalka Ciraaq ayaa ka sheekeeyay qiso xanuun badan oo ku dhacday Ala Ahmed ayaa ka qariyay kooxdiisa iyo tababarihiisa in gabadhiisu ay geeriyootay oo ay geeriyootay ciyaarta ka hor si loo safo maadaama uu si weyn u doonayay inuu ka hortago kooxda Al-Shorta oo ay ciyaarayeen ama ay u ciyaaraan ciyaartooyga ugu waaweyn Ciraaq ayaa marka kooxda u ciyaara si mataqaana loo murugeyn buu marka gabadhiisa geerideeda qariyay kooxda jirkan Ciraaq ayaa ka sheekeeyay marka sidii uu qariyay geerida gabadhiisa iyo dhibaatadii uu la kulmay isagoo hadlay wuxuu yiri saacada yar ka hor ciyaarta aad ayay iga saqiirtay gabadhayda oo dhalnayd markaas 5 maalin waxaan u sheegay qoyskaygu in warkaas aan la faafin si aan u ciyaaro nafteeda ayaan cadaadiyay in badan tababarahaygu iyo asxaabteedu kooxdu umaanu sheegin waayo waan ogaa inay diidi doonaan inaan ciyaaro anigu inaan ciyaar way ii diidi lahaayeen maadaama tacsiga gasho gabadhu iga dhimatay sidaa daraadeed maanu sheegin buu yiri sabarka ayaa iga tagay sidaan u sugayay kulanka kooxda Al-Shadra waa koox ka dhisan caasimadda waxaana u ciyaaraa kooxda ugu weyn xulka waxaan doonayay inaan wax qabadkayga aan hortooda ku soo bandhigo ciyaarta ayaan ugu dambeyn ku idlaatay gool iyo gool balse gool hayii ayaa la arkay isagoo si lama filaana u ooyaya asxaabtiisa kooxda ayaana ku faraxsanaa barbarahaas balse hal mar ayuu jawigu noqday mid murugaysan kadib markii uu sheegay qisadii qabsatay ciyaartooydu ayaan isku dayay in Ala Ahmed ay dajiyaan oo ay sabarsiiyaan sida dhacdayba kulanka marka gool hayaha kan wallahi soo fuurayal arka dhamaadka ciyaarto yani gabadhiisa oo 5 maalin u dhalnayd baa ka dhimatay saxibadiisna waa ka qariyay macallinkii waa yaabeen waxay yiraahdeen warninkii maxaa ka qaldan ciyaartan bareej ku maad ninkan muxuu ooyaa hadda markii dambu ka sheekeeyo iyagu xitaa waa wada ilmeeyeen oo garoonku dhanba waa wada ooyin baa noqday waxyaabaha kale ugu weyn ciyaaraha isbuucan waxa kamid ah hadda nimanka Arsenal la yiraahdo isbuucan wiil yar bay u balan qaadeen hadda wada arkaysan ciyaartii finalka Arsenal la ciyaareysay Manchester City ee laga qaadayo koobka ma aragteen wiil yar oo madaxa u dadnaa ee ooyniyay wiilkaas markuu fuuray Maxamed Alinia farin u soo diray wuxuu yiri wiil yahow wayna dhibaysaa ooyintaada balan waxaan ku qaadaynaa
ilinta inaan dhoola cadeen kugu bedelayno haddana xali waa la situ cunugaas marka maxaa been loogu sheegaa marka cunugaas haddaan wax loo qaban karin yariiska maxaa been loogu sheegaa wallaahi kulli fidna cindigeel cunugaas yar madaxa datay haddii habartiis ay koofida ka qaado madaxiisa cira la arko cunugaas wenger garuun meel u yaala waa wiil yar hadda wiilka yare ooyay waa canug aad u yar haddadkii daawada ciyaarta arkay wiil yar oo aad u yar buu wayaan wiilka hadda wuxuu dhashay gadaasheed markii horyaal ugu dambeeyay u dhashay haddana iyagu yuu taageerayaa marka wiilka yar markuu isbuucii kulankii finaalka uu ooyay reer Arsenal qaarkood Maxamed Linia soo booday sida Arsenal isku halayn karaba markaas wiilku wuxuu yiri ooyintaada farxad baan ku bedelaynaa malaha kulankii xal uu ku hanjabay xal inta Arsenal la qabtay 33 daqiiqo meel lagu saaray 33 daqiiqo 3 gool laga dhalay macna marka Arsenal waxay leeyahay qaldina saaxib yar waa idin bariyina cunugaasna iska dhaafa annaga been ha noo sheegin niman yahow meeshan waxaad ku haysiin ma jirti taageerayaasha Arsenal leeyin hadda isbuucan Maxamed Liini baa la hashaa laga jifay marka wiilkaas uu fariin u soo diray Twitterka ugu soo qoray ayaa Maxamed Liini wuxuu ku soo qoray fariintiisa dhageyso ilintaadu aad ay qaali noogu tahay dhamaanteen canugiinu aaminsan yahay ma ogtahay adigu darta iyo dhamaan taageerayaasha Arsenal waxaan ku balan qaadayaa inaan ku dagaalami doono sidii aan dhoola cadeyn wajiga ugu soo saari lahaa Maxamed Liini ayaa Twitterka markaa ku soo qoray marka wuxuu islaam Maxamed cunugaas siriiska oo imaamad oo niyada u dhis ciradan la sheegay in ka soo bixin islaamina marka taageerayaasha Arsenal oo habeenkii ka xanaaqsanayeen koobka laga qaaday soo jawaab marka cunug ilmo moogta wax ma ogay hadduu Arsenal taageerada bilaabay laakiin nimankan iyaga og madaxooda wada ciroobay wareera wada cireey waa ogi marka Arsenal beenteeda iyo booteeda waa garanayaan horyaalkan qaadayna sanadkan kan kale la gaara kan qaadayna marka iyagu waa yaqaanaan sheekadan marka waxay yiraahdeen war cunuga been ha u sheegin Arsenal sida dhaxaya cunuga been ha u sheegin midba wuxuu soo qoray uma baahanin balanqaadkaaga iska tag mujeedino axad yaa loo sheegay ninkan isniinta waxaa la yiri balanqaadkaaga umaanu baahni Maxamed Liiniyow يعني wuxuu balan qaaday in dhul cadeen uu keeni doono meeno xalna waa la sii tumay marka way ogin kuwan nimanka balan qaadkooda inay bayn tahay waxa uu yiri marka isniinta waxa la siiyay umaanu baahnin balan qaadkaaga nin uu iska tag Maxamed Liiniyow ku kala wuxuu soo qoray dhageyso Maxamed tani waa wax la jeclaysto in canuga yar aad nasabto wax la jeclaysto balse taageerayaashu Arsenal waxay u baahan yihiin in garoonka lagu hadlo ee ma ahan in baraha bulshada lagu daldalmo wuxuu hadalkiisa inta ku daray hadii aad kala bar xitaa ugu fiicnaan lahayd garoonka sidaad ugu fiican tahay Twitterka yaani Twitterka sidaad ugu daldalmaysid xitaa hadaad ugu fiicnaan lahayd garoonku annagu waxaan u tartami lahayn horyaalkii Champions League bay yiraahdeen kuwa ka marka waa kaayo Maxamed Liini isbuuca waa laga jafay waxa la yiraahdaa saad u daldalmaysid oo Twitterka u dhex fadhisid hadii si fiican ugu ciyaari lahayd horyaalkii Champions League waan qaadi lahayn marka Arsenal waa kaayo Maxamed waxa uu yiri wiil waa dhoola cadeen baan ka keenaya cunugii xadna xal ugu daray mid kale ilaahay amarkii Sheekh Mansour dadka waa ka ayaanta waa wareeriyay yaa City dadka waa waashayo Arsenal ku baashaalaysa 3 ciyaar bay tumeen sanadkan 3 kulmeen Arsenal baa la wada tumay waana waxaanu dhicin Arsenal in kooxi 3 ciyaarood ay wada tunto xilli ciyaareed gudii 2005 ugu dambeysay markaasna Chelsea waa sida ka yeeshay marka Arsenal wax ka celi waa la waayay Sheekh Mansour marka cunugan ee ahadiisiis ilooga xalay maxalkiisa ma fiicneen xalkiisa ma fiicneen si wiilkan loo badbaadiyo winger waa inuu meesha ka baxa si wiilkan loo badbaadiyo nimankaas gacmaha ka adag waa in ciyaaryahan ay soo gadaan canugan cunug yar waa idinka waa mariid baad noqoteen reer Arsenal dadkiinan kale ee Arsenal taageera sabarka intuu idinka badbatay guul darada iyo waxaad kala fahmilaadin guusha kala fahmilaadin marka cunugan yariis waa maskaxdiisa ma kala goyn oo intii isbuucan cunugan ku dhacday haddana xal waa lagu noqoy haddana mar kale cunugan ilaaliya cunugan ilmo kale oo Arsenal taageero wallahi yaa leedinka yeelay ilmahaas yar cira ka soo baxdo idinka berigeed Arsenal taageernimadeeda bilaaweydeen waa qurqurxaneedeen laakiin intan iyo wareerka marka la galay goomana idinka soo wada baxay cunuga yar inuu gooma ka soo baxna wallahi laga qaadan karayn cunuga yarna inay cira ka soo baxdo idinka cira caarood baad leedihiin cunugan wallahi aan la qaadan karin cira caarood hatta ma laga maqli karo cunugan waa 10 jir cira caarood ma u soo baxda maya idinka cirowdeen oo gooma inay ka soo baxeen warna idin dili horyaalan qaadina idin dilay wallahi cunugan yar hadii wax ka yimaadaan toramo orday idin imaana ilaan Donald Trump hatta Arsenal taageeray wuxuu yiri cadaabka ilaahay ha geliyo winger cadaabka ha geliyo ya
yaa dhihi karo winger hal la bedelo lacagtiisa tababarin anaa dhiiba uu yiri Donald Trump wuxuu yiri markuu xilka qabtay bis wuu yiri Arsenal waa ka baxay yiri marka meelas Trump ka ordi yaa cunugan wallahi yaa barigii aad taageeri jirteen Arsenal 2003 ee ambiitika ku qaadayseen daamankiina daaman waa rag qurqurxan oo fiyo wad aheedeen laakiin ayaantan wixii ka dambeeyay horyaalkaas habaarkii ka dhacay abaarta ka dhacday gooman iyo cire iyo hada marka saan madaxood u fiirsid cire aanood leeyahay waa cire aanood ma cire Arsenal waa marka waa kaayo wali la yaabkii baan ku gudi jirnaa caawo hadhow waxaanu gaari doonaa qaybaha la yaabka dunidu iyo waxaanu gaari doonaa qaybaha hindiga Sari Devi waa geeriyotay iyo sheekooyin badan baa inoo socda oo caawo la yaabkood ku maqli doontaan waxyaabaha kale ugu weyn ciyaaraha waxaa ka mid ah hadda nimankii Barcelona xal waa lagu dhagay shaqa marabto niman shaqa rab waa la yaqaana macna niman shaqay ka go'an tahay waa dad la garanayo macna nin dhan ee horyaalka loo niyeystay bishii Janaayo inuu qaadi doono hadda kala orod ku dhacaya macna Barcelona waa isdhigata ayaantan waliidata falfardi xalay macna madnan shaxdiisa waliba asiga geeda waalay wuxuu islaha Las Palmas ilma le way ku orod war ilma ma jiraan sanadkan ilma ma jiraan war adduunka dadka ugu qaalisan ilma leewo war ilma dadka waaloyo marka xalay Las Palmas ninkii ku wareeray Atletico sugayso ninkaas war haysta ninkaas war weyna haysto ya idoo loo baqay oo lisleeyay Barcelona 7 dhibcood idoo ka sareyso ay Atletico la ciyaaraysa idoo loo baqay hadii laga badi 4 maasuare listahay xal ilma yar baraj ku celiyeen marka maxaa soo haray 5 dhibcood Atletico marka ayaantan waa kacsan tahay ninkii Griezmann ahana 2 ciyaar 7 gool loo macna marka Barcelona xalay mara waa ka dhacday waliba ayaantan Barcelona cimaamad malahano dali gateefa iyo kuwa kale ku wareerayaan anu hal nin baan hal tabba jirto naqaan idinku aad taqaanaan wax cadna ay tahay really marka koox ay tartamayso ama horyaal ay rabto wax lagu yaqaan baa jira Barcelona hadda kama muuqato ayaantan waxay tahay ma taqaanaa kooxda markay rabto in horyaal qaado Las Palmas waxaas uma daacdo waliba Las Palmas shan oo kale hal gool 3-2-4 ka dhaliyaan ilma hal gool ku haynay ma waa ka barajeen karan war gool barajmeel ma jirto sinta wax kaaga dhaliyaan waa ka dhalinayaan marka ilmo kuwa goolasha weeyaan ayaga iska baxay markay dambe oo seexanaya laakiin koox hadaad rabto sidii Chelsea oo mar sanadii hore ee la kari waayay hatta hadad kuwii weyn u geysay waa badinayeen marata hada City nina Arsenal tumo laba maalmood 3 maalmood gudahooda ayuu loo martumaya Arsenal ولبنا حالي وريال كوسي قراعي نينكا سوكل نين شقاو ديارسان waa macna war nin 13 dhibcood leh xalay wuxuu u dagaalay 16 dhibcood u noqo oo u dagaalamay macna ninka sokala shaqa raba nin shaqa raba waa Manchester City oo kale ee hatta hadii lagu aadiyo Arsenal City mooy ninkaas marka waa ka go'anta inuu Real qaado laakiin nin Las Palmas ku wareerayo nin Las Palmas ku wareerayo horyaalna wax badan ka dhiman yihiin Real iyo wax la sheegay waa dhiman yihiin la leeyahay Barcelona xalay waa ka dhacday geeda xitaa geed uma saarna xitaa ciyaaryahanada Barcelona xalay waa xanaaqeen Iniesta iyo Piqué iyo gafuurka la wada taagay xalay saacadaha saal xanaaqa macna war waa ilma waxan ku bilow ugu celi ugu noq saddex ka dhali maxaa iyaga ka jiifana laakiin ilma gool hal gool ku hayne waa uga bareejaynayeen war ilma ma jiraan war ilma oo mactoowa ka dayri ilma oo mactoowa ka dardaarmay ilma iska jira ilma waa idinka dardaarmaya ilma iska jira asiri حتى حال بيك دغالو غرو ku dhaxgalayo wuxuu u fakaraan xalay garsoori ciyaartu u fakanaa kar seebar barab kala karna kulaha shaqa marabtiine ya inaad garsoor waqti dambe la dagaashaan idinka isu keenay u dulqaata Las Palmas hal gool ka dhalaysa adigoo dhahaya Messi ay ciyaaraya Suarez ba ay ciyaaraya marada ka dhacday oo idima cashna caaw xitaa geedka maaridiinu ma saarna ya hada biikay xal waxa la arkay asoo fakanayaba ya kadib markii ciyaartu dhamaatay wuxuu weerar ku qaaday garsoori kulanka Las Palmas ka war garsoori la fakanaaba biikay ayaa ka carooday rigooradii lagu galay Suarez oo garsooru iska ina tiray inuu dhigo Barcelona qaybtii hore loo dhigo
waxaana caradiisu sii kulleeyey rigooradii laga dhigay kooxdiisa qaybta labaad cayaarta waxaana xusid mudan in laacibka uu keedka ka daawanaya cayaarta maadaama uu dhaawac qabo marka Barcelona xalay dagaal iyo buuq iyo kambalow iyo kana way gashay axadna waa taas axad iid baa kooyaase axad iida imaan doonto waliba 12 saac iyo rubi baa la ciyaari doonaa haddii Barcelona keen la yiraahdo 3 dhibcood afar waxa u soo haraysa kaliya 2 dhibcood bisa u soo hari doonta Real Meller ma jiro marka hadaba Real Meller ma jiro marka Barcelona haday Real rabto waa in sida looga bartay kooxaha Real ka rabay ay u shaqaysaa xitaa hadii hadda Real laga horkeeno way inay tumi karaysaa laakiin nin Las Palmas ku wareersan ka shaqa mar biyo iska dhaaf meelo Alex Vidal la soo wareega Vidal Bell haduu goosha korjoog xataa ma dhalin karo halko maalno Soomaaliya toosay waa gooni ya Vidal meelaha la soo ordaya xalay xataa haduu goosha korjoog xataa waa dhali waay meelo wuxuu la imaanaya Lucas Digne la imaanaya inkastoo alba maqnaa xalay ya buliyo qodiisu aad warniyo meeshu ma cimamadeen xalay kulay meesiga oo xataa xalay haduu isku day xataa waa laga diiday kabal daariga kan marka Barcelona ida isdigatay ha u dul qaadato كمال داري اللي هذا جيت كان على أبوه برشلونة النهائي أنك أتلتيكو سنة يلينا معقول ور كمال داري وجيت كان هذا إصلاح هي سنة ديري أو درا معنا هديك لنا مركب ونركض ونوعالكم نقضوا واحدة ما كان يقول مهم سنة أسبوع الله ياب كان عيارها مركب واحد إذا كم ده لح لاعب أو مقعوا عيارها كله أي هذا إسلامي ما دام ما أنت الجماعة هي حوحنا نسرع عاوة أرمى عيارتوجا مسلم كأه soo islaamay hadda ma soo islaamin balse bir hore soo islaamin maadaama jimca ay tahay oo khamiiskii wali al'aan noogu jiro ya khamiiskii oo al'aan noogu jiro waxaan isleeyahay caawa armaad baa fiirisaa dhowr koonin oo soo muslimay bari gaala yahaayeen marka lixdan laacib waxay yahaayeen kuwa magac iyo sumcad ku leh kamal daariga la ariyay diinta islaamka ayuu ilaahay u hadiyay waxa kamid ragga Imam Adebayo nin liiraahdo isagu waa soo islaamay kabtankii hore xulka Togo ayaa iminka weerarka kaga ciyaara naadiga Istanbul Besiktas ee dalka Turkiga ayaa hadda soo islaamay 2015 waxaana la soo dhigay baraha bulshada iyadoo tawxiidka loo qabanayo Adebayo waliba xaflad si weyn loogu qayb galay laacibka ayaa wixii ka horeeyay inta ku dhaqmi jiray diinta Kristaanka laakiin Ilaahay baa hadiyada siiyo hadiyada tan ugu fiican siiyo islaamku qaatay هذا ديبايو هذا وانكي مدريد سو عياريو أرسنال سو عياريو توتنهام سو عياريو عسوالدين حتى واها عسوالدين حتى يوها انتو الإسلام كنقون أو مردويد هو يدي حتى مشاركة واكجر تليفونات حتى واكبد الشيء مركا هو يدي حتى وحي فروين إيو وحي يكون قد يسوي دوين كدل كيسا توقع يكون قد هبرتيس وحي قد قفلة يفروي يتنقية إيو هذا وحي قشن قب لن أي قد يسمعناها هبرتيس markaas waxa la war muwaananta Adebayo hooyada waa kaaye meelaha qufil furo iska daba jijiidaysa isku barawaynaysa maxaa kugu dhacay war habarta iyada ay sixirtii wirniyo habarta ilaa hadda gool waa ka dhalay yiri goolasha xataa waa dhalahay habarta geeda ay soo xirtii yiri anu wax ma haya marka xataa telefoonka quruxu dadka Afrika jooga ma laga gamba karo yiri haddaan telefoonki badista xataa way soo qabanayeen kulaha marka meeshas geeda laga soo xiro yiri aniga xataa gool waa dhalayaan tan وأنتو سلوا عايز والدين بو أيو هذا واقع إسلاميو أدبايور مركب وحوها كريستيان لكن دين إسلام كيو خاطي نيكا لواد وفرنك ريباري لاعب كرير فرنسا كوحدة ميوشان أيا خاطي دين تسوبان إسلام كاللبادي يكون إلا بدي يدو أي سبب أهيد أو أي سبب أهيد حاس كيسا وهيبة بالهامي إني كانوا إسلامو حاس كيسا كدن بيسي فرنك ريباري أيا إنتا كبحصري أيا إنتا كدبوحو بحصري مقع بلال إساقونا الشاقي دين إسلام كيني تحي أسترنان إسلام مركان أو أود دريميو جر أهان إيه مسك حامبه تاني مركو إسلامي وروان خروح بدنا هذا يوري وان شر فينا هذا وحول باين كفينا هذا تاني مركو والله وذا كل بدر إسلاميو هدايو وإله وجسوا دي حاس كيسو مسلم أحيد هذا هو إسلام ولي بسنة كيروح يسكت عين يسنة كيوريبة عيرتوه بايرو يسكت عن بايرو حلقوي قانا خمر يسكت شوان السجا أنت خمر اللي جوش أيو دلي جاري نكل هذا كيف بريس بويتينج ولالكي جرين بويتينج أيو دلي جاري حتى جوارديولا كعلي ورجوك ريبيري تشوك ورنيك حدلين وحوي مفلي هينك ما هو يقول تهدينا يا خمر أنا ودين تهذا ما قبته أيها كنا عليه
ninkaan alxamdulilah waa islaamay isaguna hay ninka saddexaad waa abidal waliba ninka aan noqday reberi wali reberi waxa leeyahay markuu yaraa waxa la dhigay kaniisad baa la dhigay xataa ma yaqaan reberi familka rasmiga dhalay ma yaqaan hooyadii iyo aabihiisa rasmiga u dhalay ma yaqaan reberi ilaahay wuxuu ugu nimceeyay marka diintan islaamku sii hooyo la'aan iyo adu la'aan ee imaamadii naareed imaamad hal meeshaas marka ilaahay intaan ugu nimceeyay marka waliba ninka la yiraahdo abidal baa kamid ah ciyaartooyga soo islaamay laacibka Faransa iyo Barcelona hore ugu soo ciyaari jiray ayaa isaga fariistay ciyaaraha sabab la xiriira caafimaadkiisa bishan oo kale 2011 laacibka ayaa waxa bur ugu soo baxday beerka sanad kadibna waxa la marsiiyay qalin labaad taas oo looga saarayo abidal oo haystay diinta Catalonism kala yiraahdo Cataloonka wacinaha Catalonism diin la jirta ayaa soo islaamay kadib arooskiisii 2017 dhacay 2017 la hadda diintiisa ilkaw ku haystaa waa ku dhagan yahay daafici hore Barcelona waxa sabab u ahaa inuu doorto diinta islaamka xaaskiisa reer Algeria hayad kabir taas oo u ciyaari jirtay ciyaaraha loo yaqaan gymka ciyaari jirtay oo gymnastiga ciyaari jirtay marka ilaahay wuxuu ugu nimceeyay raggan Faransiiska gabdha muslim ah aroosan hadda beerwad aragtay ninkan xaaskiisa hayad oo Algeria u dhalatay ayaa ninkan diinta ku soo hanuunisay ilaa hadda waa muslim ninka faraad ee soo muslim waxa kamid ah Nicolas Anelka wuxuu ahaa ciyaartooy laacibka Faransa ayaa ciyaaru isaga fariistay isla markaana iminka la taliyo u ah kooxda Rojo GCFC ee dalka Holland ayaa qaatay diinta islaamka isagoo oo jira 16 sano ayuu qaatay Anelka ayaa waqti dheer qarinayay diintiisa balse markii dambe si weyn ayuu shaaciyay isagoona la baxay magaca Abdul Salaam Bilal ayuu la baxay wax aan qarnay miiro gaalo idinka leewa anigu muslim ahay waana ahayba oo cad gambasho ma jirto yaa nin ilaahay haysto garab kale uma baahnaba garab weyn buu meesha ka haystaa shan ninka kale soo islaam wuxuu yahay Dani Blum laacibka reer Germany ayaa shaaciyay inuu qaatay diinta islaamka bishii Janaayo 2015 sida uu sheegay Blum waxa uu dukadaa shanta salaadood wuxuuna cunaa cunooyinka xalaasha ah wuxuuna ku sheegay diinteena islaamka mid rajo iyo awood leh ninka lixaad waxa weeyaan Emeka Usugu waa difaaci hore xulka Nigeria ee ka ciyaaraya koobka adduunka ee 1994 ayaa isna soo islaamay bishii Febraayo 2012 Usugu ayaa sheegay wixii markaa ka dambeeyay inuu ku dhagnaa diinta islaamka kadib markii ay niyad gelisay noloshii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam markay farax gelisay iyo dhaqanadii nabigeenu ninkana waa soo muslimay intan ciyaaryahan hadda aan ku sheegayo waa ciyaaryahano beriga hore Kristaan ahaa soo islaamay kuwa kale ee ma la sheego aad isleedahayna islaamnimadu waa ku dhasheen waa wax ay ku dhasheenoo Kristaan ba uma horeeyno islaamka u horeeyay laakiin kuwa kan waxay yihiin 6 nin Kristaan ahaa hadda islaamay وحقق ولي واحد نقلا سعوتان صاحب بيال إذا عدى سبورتيغا دالك هي جول FM قيبيه قدام بيي لا يابك عيارونا عوان وسوق عرني وحيابا كالوين حكم إذا حالي برف بالفيدي عيارت أرسن دحقشو هذا سيدة درادة حالي مركي قوري سوي حال بدلي حريجنتا قرونكا أو عد هنجرتي ولا بدلي حالي كلوكي أرسنال يسيتي معايا لي برفكو عد هدي حريجنتو عداتو قرونكو دنبو والكالفهم وين يا ماريه لوكال حريجي عيارتا marka wax cusub ayna caawo xalay u hayd in lagu arkay garoonka Arsenal Emirates waxana qof walba uu doonayay wixii xalay dhacay meesha shaqaalaha garoonku ayaa xalay go'aansaday inay adeegsadaan rinjiga buluuga si loogu calaamadeeyo garoonka maadaama uu baraf dhacay sidaas daraadeedna xalay garoonku waxa uu xariijiisu ahaa rinjin buluug buu ahaayo laakiin markii hore wuxuu ahaan jiray mid cadow laakiin xalay baraf haduu jiro cad baraf ku dar dib wayaan هذا مسيئات بوجو حمادي باليري إن سحن ودخمو توبر في الفردي يعني ولا دخمو نيك اللي رادو داير كان لقوا مجعبو داني سواريس أيام تواردو ما داني سواريس لما صفحتها برجع برشلونة عيارتو الآن تيستحل العيارات كان بلويسو حتى أبو مرو سكهري لكن هذا ما يسوي وكعريسية باللي هي إن ويل كانوا لسفي وعيو ولو ماسي وركي سوا كدري ماسي وحو ديدي باليري إن ديارها يدول مرة جوريسة هي الشركة ده هالدوليمات كا أو كهري مد أمريكيسا ماسي كور وركيسا كدري يا إبلا كمال داري الله يا بنا على ده أذكر إنسان يلنا
qori ma u qaadayna kuwa waxay waa xirxirayna seen yeelayna idoo la leeyahay oo Messi leeyahay bini aadam miya inteen ka galna leeyahay haddana warkiisa haddana muxuu gaaray in uu yiraahdo diyaarad ta guriga ma soo mari karto au gaartay ninka ya laakiin kuwii diyaarada waxay leeyahay Messi ka daray waaye haddii kubadii lagu celilayaa haddana ma anaga iyo naqabanaya annagina maarman wayna ma jeelinay leeyin Messi iyo shirkadda duulimaadka magaalada Barcelona ay hadda qoorta isugu jira kadib markii laacibka Argentina uu soo saaray amaro aysan fulin karin kuwa diyaarad leeyda waxda socdaalka magaalada Barcelona ayuu ka codsaday Messi in diyaaradaha laga mamnuuco inay kormaraan gurigiisa maadaama uu ka baqayo amaankiisa maxaa yeelay ninku xirfad la weeyaan armayba kuwan ku dilaan uu isleeyahay diyaarad dhan ku soo dul dhacda waxdii uu tagay wuxuu diyaarad dhan guriga ma soo kormari karto maamulaha shirkadda duulimaadka Fulin ayaa ka hor yimid hadalka Messi in diyaaraduhu ay dulmari kareen gurigiisa wuxuuna sheegay in diyaaraduhu soo galaya magaalada kuwa ka baxaya ay xad dhaaf yihiin sida darteedna loo baahan yahay in loo ogolaado inay mari karaan magaalada oo dhan si uu san cariir u imaan marka Messi wuxuu taagan yahay diyaarad guriga ku arkan aniga odaygii Catalonia haddaan ahay odaygii reer Catalonia haddaan ahay anigu ma rabo inaad baabaan igu qotaysaan oo adduunka ay dhaafsiisaan yaan maqli buu diyaarad guuxeedo guriga maraysa shirkadina hadda waa diidayinba waa isku dhagayeen marka waxyaabo kale isbuucan inagu weyna ciyaaro la yaabkood waxa kamid ahaa maqaayad ku taala magaalada Liverpool ayaa soo bandhigtay dadweynaha u soo bandhigtay ku nool magaaladaas inay si bilaash ku cuni doonaan cuntada ay jecel yihiin ama cuntada uu jecel yahay Mohamed Salah mar walba uu gool dhaliyo waxay leeyihiin mar walba uu Mohamed Salah uu gool dhaliyo annagana waxaan idin siinayna cuntada Mohamed Salah uu ka helo maqaayadan waxa iska le rag ay isku dal ka soo jeedaan Salah xidig reer Masar ayaana mar walba ka cuntaya sida ay sheegeen maqaayada tan waxay ballan qaadeen in gool walba uu dhaliyo Salah in dadku ay si bilaash u cuni doonaan cuntada ugu jecel yahay Salah oo loo yaqaano falafel alhamis waxayna qaab u eg tahay bajiyada iyo kabaabku falafel alhamis waa cuntada ugu jecel yahay Salah waa cunto masaarido ay caan ku tahay waa mid waafaqsan caafimaadka ay yiraahdeen kuwa maqaayadleyda laga bilaabo hadda ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka hadduu Mohamed Salah gool dhaliyo maqaayada iska imaada waliba cuntada ugu jecel yahay Salah ay leeyihiin maqaayadan oo niman Masar ay leeyihiin ku taala magaalada Liverpool marka Salah ayaantan cuntadiina lacag la'aan magaciisa loogu cunayo waliba intaas waxa si dheer taageerayaasha Liverpool waxay ballan ku qaadeen Mohamed Salah haddii goolasho uu saan ugu sii dhaliyo iyagana inay qaadanayaan diinta Islaamka waxay yiraahdeen xitaa waan islaamayna Mohamed Salah hadii uu la shaqaynayo annaga xitaa waan ka go'inaa diintan la sheegay kristanka waan islaamayna darsi baan u islaamayna bir Salah Mohamed waa kasbada kuwa ka Mohamed warkiisa ka daray Mohamed Couture Mohamed Salah Mohamed Couture Mohamed Couture wayaano isbuucan Ramos iska isku dhacay markii isku la bedelay oo Benzema lagu bedelay isku wuxuu isku day inuu garoonka cabaar isku hakiyo yaani isagoo ka xariisnaa bedelka kadib ugu dambeyn waa la bedelay qolka labiska markii la isku arkay Ramos bayr waxaad nagu sameysay caawa iskow wax bahdilaad bay ahaayeen sidana dhaqankeena ma hanbali iskow inaad garoonka ku daahdo yaani bedelka aad diido annagu dhaqankeena ma aha baliri nin yahood nala shaqayso iskow iska iyo Ramos isbuucan waa isku dhacdeeno waxay yiri iska ninka Ramos la yiri san dhaqankeena ma aha hadii lagu bedelo ciyaarta daahin ka orod tibad kartan wuxuu aad ugu cariisay yahay in Antonio Conte uu hasad xitaa ciyaartu ka bedelo isbuucii la soo dhaafay marka Premier League la ciyaarayay ee United hadda ay Chelsea garaacisay waxa la arkay kart ninka la yiraahdo Hazard oo la bedelayo Conte asna waa wareer ciyaantan Hazard kii ala bedelayo macna arimaas wax laga weydiiyay tibad kartwa war kartwa maxaa soconaya la yiri anu wax fasiraad uma hayo bedelkii Hazard lagu bedelo yiri ma aanan filan bedelkaas laakiin ugu dambeyntii waa go'aanka tababaruhu waa inuu fasiraad ka bixiyaa si aan u fahno ma awoodin aan dhexgalo maskaxdiisa لاعب Hazard oo kale waa inuu 90 daqiiqo ku jira garoonku yiri ninka la kartwa wuxuuna awoodaa mar walba inuu waxyaabo cajiib ah